السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولالها مسلمين تاميل كستوات جوكتان ومركل يقيس عجيب oo u baahan in dhammaanteen aynu ka wada faa'iideysano qisadani waxay u dhacday sidatan nin sheekh caalim oo waliba imaam masaajidka ahaa ayaa habeen waxa uu ku riyooday nin uu yaqaanay oo jannada dhex jooga markii la gaaray subaxii oo waagii uu bariyay ayaa iimaankii wuxuu raadiyay ninkii uu xalay ku riyooday isagoo oo jannada dhex jooga markii ninkii uu yimid ayuu imaamkii waxa uu ku yiri ii sheeg maxaad camal oo aad samaysaa oo alle aad ugu dhawaataa waayo xalay waxaan arkay ama aan ku riyooday adigoo dhex miranaya jannada Allah mideeda ugu qiimaha badan ninkii waa uu diiday in imaamkii uu u jawaabo su'aashiisina uu uga jawaabo ilaa imaamkii uu dhowr jeer ku celceliyo su'aashiisa ugu dambeyntii ninkii waxa uu dhaariyay imaamkii waxaana uu ku yiri ilaah baan kugu dhaariyay ii sheeg camalka aad samaysay aniguna aan Allah ugu dhawaade si aan u helo Allah raxmadiisa iyo jannadiisa ninkii ayaa yiri imaam ayaa tahay oo qisadayda ma qarin kartid laakiin ii ballanqaad in aadan dadka u sheegaynin magacayga imaamkii ayaa u ballanqaaday inuusan magaciisa sheegi doonin ninkii baa ugu jawaabay waayee dhageyso qisada igu dhacday waan guursaday gabar markii aan guursaday oo aan guriga geystay waxaan arkay in ay leedahay uur dhowr bilood oo aanan anigu lahayn aniguna waan u ceeb qariyay ehelkayga iyo ehelkeedaba waan u diiday in xaaskayga ay booqasho ugu yimaadaan si aan u ceeb qariyo oo aan loo ogaanin xaaskayga inay uur leedahay waxaa la gaaray xilligii foosha waxaan ugu yeeray umuliso waxaana gabadhii ay ku dhashay guriga marka ay umushay cunugii ayaan soo qaaday waxay ahayd aroor hore oo ay soo dhowdahay salaada subax cunugii ayaan dhigay iriida masjidka aniguna gudaha masjidka ayaan u gudbay waxaan tukaday salaad sunnah banaanka ayaan u soo baxay waxaanan arkay wiilkii yaraa oo ay ku xunsan yihiin dadkii xaafadda isla markaana ay isweydiinayaan cidda soo dhigtay waan soo qabtay dadkii ayaanan ku iri wiilkan hooyadiis iyadoo ka baqaysa ceeb ayay iska soo fogaysay aniga ayaana qaadanaya oo kafaala qaadaya gurigaygana ku korsanaya waxaan u marqaati geliyay dadkii goobjooga ka ahaa halkaasi kadib xaaskayga ayaan tuulo kale u waday marqaatiyaal cusub iyo sheekh cusub ayaana ula tegay si mar kale laygu meeriyo hadda waa xaaskayga waxa ii dhashay ilmo badan naxariista aan ayada u sameeyay waxa ay ugu abaal guday in ay ugu noolayso janno adduun aakhirana Allah ayaa waxaan ka baryaa in jannadiisa uu nagu kulmiyo aniga iyo xaaskayga